Wacan wanaagsan asxaabta nala socota ay ku soo dhowaada qiso jacayl oo aad u xanuun badan. Gabdho badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika waxay u hayaamaan waddamada Carabta si halkaasi uga raadsadaan nolol dhaanta tan dalkooda ay kaga nool yihiin. Gabdhaha shaqaalaha ka noqda waddamada Carabeed ee ka taga qaaradda Afrika waxaa ugu badan kuwa ka soo jeeda dalka Itoobiya oo ka mid ah dalalka ugu saboolsan qaaradda Afrika. Shaashe waxay ka mid tahay gabdhaha u dhashay dalka Itoobiya oo lacagtii yareed ee ka soo shaqaysay nin ku yidhi waan ku guursanayaa kadibna ka qiyaameeyey. Shaashe oo ka soo jeeda galbeedka Shaawa ee dalka Itoobiya waxay halkay ku nooleed oo asal ahaan ka soo jeeday ee loo yaqaano Koteba iska barteen wiil dhallinyaro ah. Wiilku wuxuu ku abuuray jacayl daran, jacaylkaasi oo gaaray inay ku heshiiyaan inay nolol wadaagaan. iyadu waxay lacag ay Sacuudi Carabiya ka soo shaqaysato magaciisa uu ku soo dirtaa si ay wax ugu qabto. markay xoogaa ay urursana ay dalka timaado sidaasna ay shaqo ku abuurtaan noloshoodana ku mideeyaan. Shaashe oo ka sheekaynaysa waxa ku dhaca waxay tiri Sacuudi Carabiya ayaan u shaqo tegey Sacuudiga. markii aan joogay waxaan u shaqaynaya haweeney la nooleed walaasheed oo curyaan ah oo kaadida iyo saxaradaba anigaan ka qaado aan u khidmeeyo si gaaran uga taxadaro. waxaana ii joogto ahayd inaan maalin weliba dharka iyo gugusha ka bedelo nadaafadeedana aan ka shaqeeyo. 4 sano ee reerkaas u shaqaynayay bishii mushaar ahaan waxaa la ii siinayey 700 oo riyaal oo Sacuudi Carabiya, iyadoo mushaarka xilliga ku habboonna aan la siin jirin oo mararka qaarkood laga daahin jiray. 4 sano kadib ayaan reer kale u wareegay, waxaana ugu shaqaynayay 900 oo riyaal oo mushaar ah bishii. guriga cusub ee aan galay wuxuu ahaa cadaab yar. habeen iyo maalin guriga ayaa dusha lagaga xiri jiray oo la iima ogoleen 24 saac inaan guriga meel uga dhaqaaqo. cadceedda xitaa inay soo baxday inay dhacdo maana kala ogaan jirin. 2 sano ayaana sidaa ku shaqaynayay. kuleelka faraha badan ee Sacuudiga dartii jirkayga oo dhan wuu bedelmay. muddo 6 sano ah ayaan shaqaalanimo ku joogay Sacuudiga. lacagtii aan shaqaystana waan aruursanayay. marka waxaa la gaaray xilligaan ku ballannay aniga iyo saaxiibkay inaan isguursan lahayn. wiilkii aan guursan rabay muuqaal ahaan ma aqaano, telefoon unbaan kala sheekaysanayay, codkiisa ayaana aqaanay. waxaana wiilka ku aaminay walaalkii aan isnaqaanay oo isoo wacay iguna yidhi walaalkii waa wiil diin leh ee fadlan guurso. hadalka walaalkii ayaana igu sii dhiirageliyey inaan aad u xiriiriyo aana go'aansado inaan guursado wiilkaasi jaceylkaan u qaaday. markii dambe waxaan ogaaday ninkii ii been sheegayey ee lahaa waan ku guursanayaa oo lacagteedii oo dhan aan u diray inuu naag kale ku guursaday. lacagtii anigaan ku soo daalay shilinna aan u soo shaqeeyey naagta kale ku guursaday, weliba carruur loogu dhalay. waaga ayaa igu baryey, tala ayaa igu caddaatay. aniga waxba kuma haayo, nin iyo lacag toona ma hayo. 6 sano iyo ka badan waxaan guri carbeed uga soo shaqaynayay, halkaas ayaa ku dambeysay. waxaad dareemi kartaa dhaawaca iyo niyadjabka iyo moral xumada ay arrintan kugu reebtay. weliba waxaan ka baqayaa inaan rag dambe aamini waayo siduu ninkan ii galay iina khiyaamay darteed. haddii ay tayda ahaan lahayd waxaan jeclaan lahaa lacagta aan u soo diray dhul inta noogu iibiyo, guri noogu dhiso, shaqo ganacsi noogu abuuro, anigana aan aroos u yimaado. hamigaygoo dhan riyo ayuu noqday. waa hadda iyo inaan shaqo hor leh iyo rafaad hor leh aan u maraa sidii aan nolosheyda u maarayn lahaa. waxaase wax weliba iga daran oo aan ilaabi la ahay. axadda aniga oo lacagta oo dhan u soo diray ayaan subax isniinta la soo hadlay si aan u hubiyo inuu lacagtii helay iyo in kale. taleefonkii ayuu iga dansaday. baraha aan ku xiriiri jirnay sida WhatsApp iyo imo blog ayuu iga saaray. maalintaa wixii ka dambeeyey in muddo ah niyadjabkii iga soo gaaray awgii cuntadii waan cuni waaye, waan seexan waayey. 3 bilood ayaan dhibkaasi ku jiray. markii dambena caafimaad darro ayaa ila soo diristay. sankii afkaba dhiig ayaa iga yimid. maalintii 3 jeer ayaan dhakhtarka booqanayay oo filimba la iigu surayey. dhibkaasoo dhan waxaa ii geystay ninkii aan doonayey inaan nolol wadaagno oo qiyaamo intaa leeg ii geystay. ugu dambeyn shaashee walaalkeed oo ka xumaaday dhibka walaashiis loo geystay ayaa arrintan booliiska gaarsiiyey. hase yeeshee booliisku uma suuragelin inay helaan amba soo qabtaan
ninkii lacagta ka dhacay nafteedana khiyaamay. dhacdadan ayaana noqotay mid aad u xanuun badan, murugo badanna ku beertay gabadhan. waana dhacdooyin badan oo ragga qaarkood ay ku khiyaameen gabdho noloshooda u hibeeyey, sidoo kale hantida ay lahaayeen ku aaminay. mar weliba jaceylka ma mudnaa in la khiyaameeyo, mana mudnaa qofku jecel inaad sidaa iyo si la mida aad u gasho. waxaana muhiim ah mar waliba inaad sidoo kale ka fikirtaa qofkaad jaceylka la wadaagaysid waxa uu yahay mid run sheegaya, mid naxariis badan, iyo mid khiyaanoolaha midkuu yahay. waxaana sheekadan murugada badan idinla socodsiinaya wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman. waxaadna kala socotaan janalkan ku leeyahay barta youtube-ka ee Gacal Ayman si sheekooyin dhacdooyin kalo aad u xiiso badan aad uga heshaan. sabscribe saar kuna soo biir, sidoo kale share, like, comment. waad mahadsantihiin.